munaasabad kooban oo loo qabtay furitaanka masjidka deegaanka Habarheshe oo dibudhis lagu sameeyay waxaana ka qayb galay xubno ka socday qurba joogta deegaanka qaar ka mid ah waxgaradka culimada iyo odayaasha gobolada Saraar iyo Togdheer iyo bulshada deegaanka Habarheshe masaajidkani laga hirgeliyay deegaanka Habarheshe oo hoos yimaada gobolka Saraar ayaa maanta xariga laga jaray isla markaana maanta lagu tukaday salaadii duhur ee Jimcaha kadib markii uu dhameystirmay ugu horreynba gudidii gacanta ku haysay dhismaha masjidkani deegaanka Habarheshe ayaa ka warbixiyay dhamaystirka masaajidkani iyagoona mahad celiyay muxsiniintii bilow ilaa dhammaadkiisa qaybta lixaad kale ka qaadatay iyo cid kastoo kaga qayb gashay maal iyo muruq waxaana ka mid ah hadalladoodii geesta kale injineerka dhisay dhismaha masaajidkani iyo sidoo kale waxgaradka magaalada Habarheshe ayaa ka dareen celiyay masaajidkani qiimaha badan ee laga hirgeliyay deegaanka Habarheshe waxayna alla uga baryeen inuu wax wanaagsan ugu bedelo allana ka abaalmariyo khayrka ay ka qayb galeen waxaana yiraahdeen xafladii masaajidkan dhismay ee la yiraahdo مسجد الرحمة في Habarheshe مساجد كاس أينو أركينو مقال كيسة إنه مركا حفلة دي سيفوريتانكا أينو ساكا يسوغنمي في حفلة دان ساكا وحينو أباندقينا دبان مسلمين تعالمك حدر كهر sidan oo kale waxaan u qabanay saxaafadda shirar ku dhamaan waxay ku saabsanaayeen masaajidka oo qabyo ah masaajidka oo dunsan masaajidka oo maaragtay soconaya aynu dadka ugu gudbinaynay muslimiinta inay ka soo qayb galaan oo waxay ahayd xaflado dadka wax lagu weydiinayo falillaahi alxamdu wal minna saaka waa xaflad lagu mahadnaqayo la isugu bushaaraynayo la tusayo dadkii shalay lagu lahaa masaajidka soo caawiya oo soo dhisa in la tuso markaa caawimadii ay galeen iyo hawshii ay qabteen iyo dadaalkoodii midhihii ka soo baxay in la tuso ayaynu saakana markaa xafladeenu ku saabsan tahay masaajidkan wuu dacweynaa muddo dheer buu dhisnaa wuu dumay yacni wararkiisii hore haray u gudbeen markii hawsha masaajidkan ay dhex socotay ama markii duminta la bilaabayay aad baan runtii anigu shakhsi ahaan warwar uga qabay si u dhismi doono hase ahaatee waxaan rajaynayay mar inuu dhismi doono habar raago laakiin talabaad waxaan rajaynaynba inuu sida noqon doono masaajid uu dhismi doona kuwa yaryar meelaha ka dhisan oo kale iyo wax la mid ah waan ka rajo qabay laakiin runtii kama aan rajo qabin ama ma aan filaynin masaajid noocan ah inuu dhismi doono laakiin wax kastoo bani aadamku isleeyahay suuragal maahaba suurageliya waa Allah subxaanahu wa tacaala wuuna suurageliyey waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo u mahadnaqaynaa muslimiinta meel kastoo ay joogaan ka qayb galay dhismihiisa iyo waxtarkiisa maal iyo muruq iyo maskax iyo farsamo mid walba kaga qayb galay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ballanqaadkiisii ha idiin fuliyo wuu fulinayaaye rasuulkeena suubani uu yidhi qofka arladan korkeeda masaajid ilaahay dartii uga dhisa guri baa aakhiro looga dhisaa markaa guryo badan oo aakhiro ayaynu rajaynaynaa inay u dhismeen muslimiintii rag iyo dumarba lahayd dal iyo dibadba joogtay ay ka mid ahayd Yurub Ameerika Carabaha Somaliland meel kasta cid kasta oo ka qayb gashay ilaahay waxaan u rajaynaynaa aakhirada adduunkaba inay liibaanaan ilaahay waxaan uga baryaynaa haddaanu nahay gudida ku hawshanayd masaajidkan
culays weyn oo nasaarna ayay naga kor qaadeen hawshii bay naga fududeeyeen maalkoodii iyo maskaxdoodii iyo muruqoodiiba way keeneen ilaahay waxaan leenahay jazaakum allahu canna ilaahay xagga iyagana ha idinka abaalmariyo waan idin ducaynaynaaye xaggiisana ilaahay ha idinka abaalmariyo subxaanahu wa tacaala intaa marka aan mahadnaq idhaahdo waxaan bushaaraynaynaa mu'miniinay bushaara masaajidkii wuu dhammaaday waad ku guulaysateen ilaahay waa idin dhammaystiray inkastoo bino aanay dhammaan oo had iyo jeer isaga baahbaahan tahay dee ilaalin iminka hawshii ahayd hayay soo caawiyay waxaanu idiin bushaaraynaynaa inay hawshaasi inaga afbeeshay masaajidkii oo dhismay shaqaynayo muuqaalkaa aad arkaysaana uu leeyahay cid badan oo kale ayaa hadalka iga dambayso ku sii raag haddii ilaahay ka dhigo waxaan caalamka gelinay qayladhaan ahayd in mase jaamaca habar heshay oo aanu duminay lasoo dhiso haddii ilaahay ka dhigo dee marka geed la beero ee lagu tabco marka dambe midhihiisa ayaa la gurtaa haddeer waxaan gaadhnay jawaabtii qayladhaantii hore inuu masaajidkii dhammaystiran yahay maanta malcaamadiisii qolkii maxaan idhahdaa wadaadka ama maxkabadda berkadiisii biyaha maxay dhahay masaajidkii dee maanta ishaa u macallina wax walbahe waxaan soo bandhigaynaa inuu masaajidkaasi maanta yahay masaajid dhammaystiran oo maxay idhahday dhismihiisii uu dhammaaday wixii qalabee hoostiisa yaallay intii la kari karayeyna ay iyaduna dhan tahay masaajid waynu ognaho baahi masaajid ma dhammaato wadaadkuna waa sheegay oo hadday rabadaanada noqoto iyo hadday dee shaqaalaha masaajidka ka shaqaynaya noqoto iyo haddii magaranaysa dadka gacanta ku haya masaajidka ay noqotaba baahi masaajid iyadu sideed ahaan ma dhammaato oo waa goob cibaado laakiin dhismihiisii oo gudo iyo hoos iyo dulba leh way dhammaatay insha allahu cid kastoo ka qayb qaadatay cod iyo cuudba ilaahay waxaan u weydiinaynaa wixii ay kaga soo qayb qaateen ilaahay inuu meel khayr la u geliyo waalidiintoodna ilaahay janno firdowso geeyo dembiyadoodana dhaafo dhammaanba muxsiniintii ka soo qayb qaadatay masaajidka kan ee hirgelisay inaan maanta isagoo qurux badan aan isugu nimaadno aanu xaflad ku qabanayno cid kasta oo ka qayb qaadatay cod iyo cuudba ilaahay waxaan u weydiinaynaa in ilaahay jannadii firdowso geeyo wixii ay bixiyeen wax kastaba ha noqdaane qof kastaba wuxuu bixiyey in ilaahay janno ugu bedelo ayaan ilaahay uga baryaynaa insha allahu tacaala waxa weeyaan masaajidka kan tacab badan baa galay xoolo badanina waa galeen tacab badanna wuu soo saaraya haddeer arday 70 gaadha oo yaryar oo dhowr iyo 10 jirku ugu weeyahay ayaa fadhiya oo ardaydiisii masaajidka ardaydiisii wax ku baranaysay kuwaasi waxa weeye waxa intifaacsan doona islaamka waxa intifaacsan doona ciddii ma garanaysaa tacabkan la timi ayaa kuwa wax ku baranaya xitaa ajirkooda wax ka yeelanaya kuwana way ku soo baxayaan kuwana way ku tabceen intiiba waynu u aayena waxay noqon doontaa midho aynu guranno ilaa iyo maalinta qiyaama mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan ku celinaynaa oo aan u ducaynaynaa qof kasta oo ka soo qayb qaatay masaajidka kan in ilaahay jannadii firdowso geeyo ilaahay barakeeyo ubadka iyo adduunkaba ilaahay u barakeeyo cimirka u barakeeyo ayaan ugu ducaynaynaa haddii ilaahay ka dhigo dee maanta adduunyaynu joognaa berrina aakhiraynu tegaynaa maalin aynu maanta ahayn oo aynu maanta ka itaal darannahay ayaynu rajaynaynaa in tacabkaa la gashaday ciddii gashatay ay u aydo haddii ilaahay ka dhigo insha allahu tacaala dadkii masaajidkan ka soo qayb qaatay dad aan magacyadooda soo gudbin karayno ma aha waa ka badan yihiin dad aanu magaranaysaa halkan ka magacawno oo aanu 1 iyo 2 nidhahnana way ka badan yihiin dad aanu naqaano iyo kuwa aanan aqoonin intuba way ka soo qayb qaadatay masaajidkan muxsiniinta caalamka joogta oo dhan intii ilaahay soo waafajiyay baa ka soo qayb qaadatay
toddobada qaaradooda adduunka lacagta halkan lagu dhisay waa ka wada timi gudaha iyo dibaddaba waa ka timi aqoonsi haddaanu hebel iyo hebel nidhaahno dee ka gayoon mayno ilaahay baa tirinaya ilaahay baa qoraya qof waliba wuxuu la baxay meel bay u taallaa annaguna haddii aanu ahayn guddidii masaajidka wixii naloo dhiibay ee gacantayada soo galay masaajidka ayaanu ku tufadirnay oo aanu gelinay haddii ilaahay ka dhigo waysadii aminka way soconaysaa waa shaqaynaysaa biyihii barkada way ku jiraan laydhkii wuu shaqaynayaa wax ka dhimani ma jiraan baryo iyo duco uun bay ila tahay haddeer inay muhiim tahay cid kastoo ka soo qayb qaadatay ilaahay ha barakeeyo wax badan baanu dee hortiina keenay qabyo oo aanu idin gacan haadinay waxa weeyaan waxbaanu idina ballan baanu idin qaadnay idinkuna ballan baa noo qaadeen ballantiinu way dhammaato way fushay waayo halka loo socdaa halka maanta aynu taaganahay halka loo socday inuu socday hayaanku halka uu socday waxa weeyaan halkay maanta taagan tahay weey waa ka gurigii hortiina yaala masaajidka waa ka hortiina cid walba horteedu yaala waa tii aanu idinka ballan qaadnay annaguna taanu idinka taas waa dhamaatay waa tii ka ballan qaadeen waa dhamaysan gurigii waa dhamayseen servicekiisii oo dhami wuu shaqaynayaa saaka annaga idinkuna mid baa ballan nooga sugaysaan oo idinka ballan qaadnay inaanu hortiina keenno isagoo shaqaynaya tiina waxaan filayaa inaad gacan nagaga dhigtaan saaka nin walba hortiisa uu yaallo ducana waa milyaan saaka dee ducadun baa laydin dardarayaa ciroole iyo caruur iyo culimo iyo muxuu ahaa mid waliba waa ducadii baa laydin dardarayaa nin waliba wixii uu gashaday ilaahay baa u xisaabinaya og bini aadan u xisaabin maa ilaah baa u xisaabinaya marka waxa weeyaan ballantayadiina halkaasay nagaga dhan tahay waanu hortiinaanu keenay gurigii oo shaqaynaya waxa markaa halka meesha iminka qodobka isdultaagali waxa weeye milcaamadda iminka masaajidka 70 arday iminka wax ka baranaysa iyo dadka gacanta ku haya masaajidka waaritaanka si masaajidkii aanu isu dhimin ee wax ugu kordhaan dadkaasina tacab bay u baahan yihiin oo macallinkii iyo dadkii wax bari lahaa iyo ma garanaysaa tacabkoodii waa inoo taala sidii gurigu inoogu yaalay markii hore qabyada ahaa bay inoogu taalaa iyaga iyo dadka ma garanaysaa serviceka masaajidka u shaqaynayaaba si masaajidku inoogu waaro hadalka waan soo koobayaa masaajidkii aanu wadnay muddada dheer ee dhowrka bilood gaadhaysa aanu soo wadnay haddaanu nahay guddidii gacanta ku haysay maanta sidaa ay sheegeen maamulka iga horreeyey dhammaanba annagu wixii aad maxay ahayd toyn aadna tidhaahdeen muujiya waa nagaa muujinay maanta meel kastoo aad joogtaanba waxaad ka arki doontaan miidiyaha yacnii masaajidkii qaabka aanu yacnii u samaynay maxay ahayd toy waxaanu halkan hambalyo iyo bogaadin iyo duco uga diraynaa dadkii islaamka ahaa ama dibadda ha joogaan ama dalka ha joogaan ama rag ha ahaadaan ama dumar ha ahaadaan ama ha dhintaan ama ha noolaadaan ama qof weyn ha noqdo ama qof yar oo saqiira ha noqdo qof kasta oo fikir ka geystay masaajidkan hadday niyad tahay hadday adduun tahay hadday xoog tahay waxaanu leenahay jasaakallah khayr ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro hambalyo fara badan iyo duco fara badan ayaanu idiin soo bandhigaynaa haddaanu nahay muslimiinta ku nool habarheshay iyo kuwa kale ee islaamka ah ee ku tukan doonaba masaajidkan yacnii midhihiisii maanta way idiin muuqataa maxay ahayd toy ardada 70 baa fadhida oo yacnii dadkii ku intifaacayay ugu horeeya insha allahu khayra qof kasta way anfacayaan kuwaasu biyihiisii baa shaqaynaya waysadiisii baa shaqaynaysa sidii dadka hore u sheegeen laydhkiisii baa shaqaynaya maxay ahayd toy shaqaaluu yeeshay waanu u ducaynaynaa mid kasta oo ka qayb qaatay
waanu u ducaynaynaa ilaahay khayr ha idin siiyo masaajid ha idinku daro miisaanka xasanaadku iimaanku dee yacni way jirtaa hawshii masaajidku way soo gabagabowday laakiin yacni shaqaalaha masaajidka sida iimaanka masaajidka ama mu'adinka oo kale yacni meel uu ku tiirsan yahay ma jirto dowladi kama shaqayso dhulkan oo waxba kama bixiso yacni dadka islaamka ah ee yacni hore ugu soo intifaacay ee soo bixiyey adduunkooda ee masaajidka dhistay ee ducadoodiina maanta aanu ku wareejinay ayay taasina u taallaa walaalayaal halkaa kaga hadhina waxaanu idin leenahay intaydiin hadhayna waa mid idin taagan oo aad yacni aad maxay ahayd ku xisaabtami doonto marka hore waxaanu leenahay intii masaajidkan halkaa quruxda badan ee aanu iminka aynu fadhino soo gaadhsiisay waxaanu leeyahay jasaakumullahu khayran jasaa masaajid dhammaystiran oo servicekiisii oo dhammi shaqaynayo ayaanu nimi oo maxaanku idhahdaa kumbuliida oo laydhkii leh biyihii leh maxaanku idhahdaa qaboojiyihii leh rooggii yaallo xafidan oo dayrkii ma garanaysaa xoolaha iyo xawayaanka ka xafidan waanu ku soo wareegnay masaajid runtii standardka marka tuulo la yidhaahdo ama magaalo yaroo kooban quality-giisu ka sarreeyo weeye waxaan ku celinayaa jasaakumullahu khayran jasaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro intii ka qayb qaadatay dhismihiisa iyo maxaanku idhahdaa juhdi kasta inkasta halleekaade ku bixisay af iyo adin iyo adduunba waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran jasaa reer habar heshay waxaan leeyahay waa jaanis wanaagsan waa opportunity wanaagsan waa meel wanaagsan oo lagu cibaadaysan karaa idiin samaysantay dee inaa waxbarashada iyo haddii alle culunta iyo aa ku kordhisaan oo dee masaajidka la nooleeyo intaasna waxaan farayaa reer habar heshay dabcan sidaa odayaasha ay guddidu sheegeen waa laga maqan yahay deegaanka iminka dad kooban baa jooga marka horena dee waa tuul oo waa garan karaysaan awooddeeda waxa muuqata wax waa la samayn karaa laakiin maintain garaynta iyo sida dee gacanta loogu sii hayo ayaa ka badan marka waxaan kula dardaarmayaa muxsiniinta masaajidkan quruxda badan la dhistay iyo inta kale maqlaysaba inay xubnaha gacanta ku haya la ogaado masaajidka maintain garayntiisa la ogaado si aanu maaragtay hoos uga dhicin quruxdaa iyo wanaaggaa uu maanta yahay aanu hoos uga dhicin taasina waxay ku sii socon kartaa dee qofku waxa weeyaan baahi buu yeelanayaa inta gacanta ku haysa ha noqoto isagoo laftiisu wuxuu u baahda ha noqdo oo maxaanku idhaahdaa dee wax walba leh biyo leh wax allaale wixii service dee meel maaragtay furan oo dee active yeelan lahayd leh roog leh oo dee wax waliba waa dhammaanayaan marka waxaan leeyahay muxsiniinta gaar ahaan inta deegaanka meel kasta ha kala joogeen dabad iyo gudaba in masaajidkan xidhiidhkiisa isha lagu hayo lala xidhiidho wixii wax lagu tari karayo lagu taro intaasaan anna maaragtay leeyahay mahadnaqana waxaan la qabaa culimmada iyo odayaasha iga horreeyey aad iyo aad baan masaajidkan dee quruxda badan waa masaajid muddo badan runtii sii jiri kara haddii aanu halkaa serviceka ay wanaaggaasi hoos uga dhicin masaajidka masjiduraxma habar heshay warbixintiisii baynu ku guda jiraa odayaashii hore hadalka dhameeyey waxaan ku soo koobayaa dhowr qodob oo mahadnaq iyo dardaaran insha allahu tacaala awalan waxaynu u mahadnaqnaa allah baynu u mahadnaqnaa subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu u mahadnaqnaa isagaa inoo hirgeliyey nimcadan oo dhan oo ay tanu kow ka tahay iyo kuwo kaloo badan uu ina siiyey wain tacudduu nicmat allahi laa tuxsuuha buu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi nimcooyinka ilaahaydiis iyo ma koobi kartaan marka maanta tanaynu hor fadhinaa dhex fadhinay indhahaynu arkayaanunbaa u baahan inaynu wax iska nidhaahno marka awalan waxaan u mahadnaqayaa ilaahay subxaana wa tacaala mar labaad waxaan u mahadnaqayaa guddidii isu xilqaantay hawshan ee isu taagtay iyagoon adduunna haynin wax lacagoo ay hayaan aanay jirin ku dhiiraday inay masaajidka intay dhulka la simaan 60 san jiray haddana ay u qumaan oo isu taagaan nimankaas ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro waa niman geesiyaal runtii ilaahayna wuu la qabtay Soomaalida waxa ku maamaahan wax rag u kacay rabbina aqbalay way rumoobaan marka ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro walaalaha isu taagay arinta waxaanay ku tusaysaa haddii la isu tago
oo la fekero in wax la qabsan karo laakiin dadkeena waxa ku badan inaanay waxba qabsan karin oo cid kale wuxuu qabato laakiin haddaan iyagu isu taagi lahayn oo aanay ku dhiiran lahayn masaajidka inay dumiyaan masaajidka maanta quruxda badan lama u dhisnaadeen marka walaalaha waxaan leeyahay jasaakumullahu khayran ilaahay idinka abaalmariyo waxa ka xoog badan in lacag la bixiyo sadaqa la bixiyo qofku inuu fekero oo xoogiisa bixiyo marka nimankaas way fekereen xoogoodina way bixiyeen ilaahayna uu la qabtay taas waxa ku tusaysaa marka haddii la isu tago in wax la qabsan karo وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هدينا وناق عبسيد إلهي سكاشنو كون يكون كوي ما ندس كرا ولا الله وان بوجادنا يا جزاكم الله خيرا وحن كلو يجنا أن هالنا غيود عين يا محسنين تي عالم كتشوجي مركي مساعد كلا الدنيا أنا وهبين كلا الدنيا وان داوني واحد بدنا كم جيسن لكن وان قيبي كل بدي وان قيبي عالم كله ما نو قيبي تاريخ قارنا ويقول هذا رنتي هبرة شيء marka walaalahaas ka qayb qaatay ee maalka bixiyay ee caalamka oo dhan ku nool waan u ducaynaya waan u mahadnaqayaa jazaakumullahu khayran siiba maadaama anigu aan ahay qurba joog walaalaha qurbaha ka soo diray lacagta sadaqada la soo baxay iyo kuwa wadanka joogaba ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro dhibka ugu badan ee qurbaha haddaanu nahay haysta waxa kamid ah caruurta ayaanu ka warwaraayay ilaahay caruurta ha ugu xifdiyo sadaqada ay la soo baxeen ilaa halkaa ay u soo direen masaafo aad u dheer baa u dhaxaysa halkay joogaan iyo halkan waxaan leeyahay ilaahay caruurta idinku xifdiyo maalkana ilaahay idin barakeeyo idinkana wax kastoo dhibaato aad ka cabsanaysaan ilaahay idinku xijaabo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sadaqadu inay balaayada xijaabto oo xanuunada kaxayso oo lagu bogsado marka iyagana waxaan leeyahay walaalaha muxsiniinta ee masaajidka soo dhisay ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro ilaahayna ha idinka abaalmariyo qofku dee jan uu leeyahay qofka masaajid dhisaama ka qayb qaata jan uu leeyahay nabiga calayhi salaatu wasalaam u ballan qaaday marka jannadana ilaahay ha idinku maartay arsaaqo oo ha idin geliyo jannatul firdaws al-a'la ilaahay ha idinku arsaaqo waxaan ku soo koobayaa hadalkayga oo ku dardaarmayaa qolada muxsiniinta ah ee masaajidka dhisay waxaan kula dardaarmayaa sida culimadu sheegeen inaan masaajidka lagala hadhin tabaruca masaajidku haddaan cid ku xidhnayn ama dawlad ku xidhnayn ama cid kale ku xidhnayn ilaahay iyo ummaddiisa sugayo wuxuu u baahan yahay inaan tabarucaadka laga goynin ee laga warhayo sida ay sheegeen maadaama hawshii weynaad ina dhaafto masaajidkii maanta inoo dhisan yahay oo la manaafacadsanayo waxa inagu hadhay waa wax yaroo mar lasoo tuurtuuro ayaa ku filan shaqaalaha iyo nadaafadda masaajidka waa masaajid aad u weyn oo aad u qurux badan runtii marka waxaan odhan lahaa walaalaha muxsiniinta ah ee dee iyagu doonaya mar walba inay sadaqaystaan nebigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam xoolihiinna waxaad ku leedihin waxaad la baxdaan kuwa khasnada ay noogu jira ma lihin inagu waan ka dhimanana laakiin qof waliba wuxuu hormarsado ayuu leeyahay taasoo haynoo badato markaa inagu tanaynu ilaalinaa khasnada ku jirta laakiin taynu la baxaynaa ha badato marka yaan laga goynin masaajidka tabarucaadka ha la ogaado bilbil labadii bilood ha la soo xuso masaajidka dad wanaagsan waa la helayaa mar walba wax soo dira insha allahu tacaala laakiin yaan la ilaawin masaajidka habareeshay ee aynu maanta furayno waa la dhisaa dabeetana waa la qufulaa masaajidkan waxaan rajeynaya insha allahu tacaala inuu noqdo sidii masjidkii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa maxkamad wuxuu ahaa maamul wuxuu ahaa madrasad wuxuu ahaa culumta lagu baran jiray asxaabadu halkaasi kasoo qalin jabiyeen may jirin madiina iyo maka iyo jaamacadaha imika adduunka ku jira may jirin masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay asxaabtu ka soo wada baxeen oo ay culumta ku qaateen marka waxaan walaalaha u jeedinaya maamulkana inuu masaajidku noqdo masjid dacwo furan oo qof kastoo dacwad wadaa uu ka jeediyo ka akhriyo oo kutubta lagu akhriyo oo ardayda lagu baro wax oo dumarka wax lagu baro dumarka inaan la ilaawin waxayna ku xunaa haddayna ragga soomaaliyeed dumarka waxba ma baro qayb yar baa loo xidhayaa markaan loo bahnina waa la laabayaa loox yar baa loo soo iibinaya intaasoo loogu xidhayaa gabdhaha ha la baro diinta ilaahay ha la baro gabdhaha qur-aanka ha la baro gabdhaha marka insha allahu tacaala kolley programku waa idinku jirtaa laakiin waa idinkula dardaarmaya masaajidku inuu noqdo masjidu dacwa inuu noqdo masjidu dacwa haddii la yidhaaho wax kastaa soo gelaya waa lagu meherinayaa waa la isku maxkamadaynayaa ummadda dhan nolosheeda halkan ha laga maamulo waan idinku dheeriyaan malinayaa على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد marka hore hadalka waa la dhameeyey saddex qodob baan taabanayaa mid waa aniga oo waxa weeyaan injineerkii masaajidkan dhisay ah cabdulkhaaliq ali xuseen guuleed marka hore taas waa qodob ilaahay baa mahad iskale marka xiga waxaa mahadle dadkii muslimiinta ahaa ee masaajidkan ilaahay u diray marka hore masaajidkan taariikh badan buu soo maray sida aan ku hayo anigu inkastoo aan soo joogin dhowr taariikhood oo iga horreeyey
ilaahay marba qoomkii uu joogay ee markaa deganaa buu ilaahay u diray mar geed buu ahaayo sidaan taariikhda ku hayo mar geed baa laga soo bilaabay raggii markaa joogay awoodoodu waxay inay geed u waabaan oo geed u waageeraan markii xigtay ariish baa laga dhigay sidaan taariikhda ku hayo oo la dhoobeeyo dhooba laga dhigay markii xigtay rag qoomkii ka dambeeyey markaa wuxuu ka dhigay lebankii dhoobada ahaa qoomkii ku xigay wuxuu ka dhigay leban buu wuxuu u bedelay jaajuur iyo magaranaysaa dhismo kale oo uu ku siyaadiyey maantana qoomkan maanta u dambeeyey ee muslimiinta ilaahay maanta u diray ee san qurxiyey ee casrigan maanta la joogo macnaha dhisay ayaa ugu dambeeyey shanta taariikhood ayuu soo maraysaa iminkaan taariikh ku hayo warka anigu oo aan injineerkii dhisay oo maanta ilaahay igu alhamiyey oo ii diray oo maanta iga qadaray inaan masaajidkan dhiso ilaahay mahadii waan ku guuleysanay alxamdulilah aniga iyo dadkii muslimiinta ahaa ee dhisay maalkan geliyey iyo tacabkan iyo fikirkan iyo aqoontan geliyey aniguna waan ku dadaalay in macna aan markaa waajibkayga ka guto anigoo masaajidkii ugu horreeyay salaadan ku tukada uu ahaa anigoo 6 jira oo aan alle gudino markaa aan gudnayn oo 6 jira ayaan masaajidkan salaada ku bilaabay alxamdulilah waana ku dhashay agtiisaan ku dhashay maanta markaa si gaar ah inaan u sii qurxiyo ugu sii dadaalo waajib bay igu noqotay ilaahayna waa ila qabtay oo alxamdulilah dadkii muslimiinta ahaa tacabkoodii macnaha in waan ku guuleysanay marka waxaan u ducaynaynaa maanta dadkii muslimiinta ahaa ee dhisay ka qayb qaatay waan u wada ducaynaynaa ducada waa loo jamciyo waa loo badiyaa ilaahay jannatul firdaws inuu ugu bedelo oo yaanu ilaahay uga baryaynaa oo ilaahay cumriga u barakeeyo iyo maalka iyo ubadka iyo ooriyaha iyo adduunka ilaahay intaba ugu barakeeyo ayaan ilaahay uga baryaynaa annagana aan ku intifaaca ee macnaha ku cibaadaysta ee ku cilmi barta ee ku cibaadaysta uu naga yeelo iyaan taasaan ku ducaynaynaa hadalku uu iska kooban yahay marka waxaan rajaynaynaa in aan naga guddoontaan maanta maanta xafladda aan waajibka inaan soo gudbino oo aad aragtaan tacabkiina meeshuu galay oo qof waliba uu ku farxo oo macnaha maanta wixii uu gashaday ay u muuqdaan meeshii uu gashaday alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale aad baanu idiin salaamaynaa aadna waa idinku ducaynaynaa jannat firdowsaan ilaahay idinka baryaynaa wixii kalena waa saasaynu insha allahu tacaala dee uga wada socon doonaa wixii la isla qabteen muslimiintu ay isla qabtaan way fulayaan marka insha allahu tacaala khayr baynu isu dardaarmaynaa cidaan ilaahay aan ka biqin salaada uga sakada bixiya kuwaasaa ilaahay u diray oo oogay macnuwan iyo xisiwan labadaba waa loo camiraa aragti iyo qoomba masaajidka waa loo camiraa dad iimaanle baa ilaahay u diray rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam man laa yashkuru naasu laa yashkuru allah qofka aan dadka ku siiyey nimcatu shukra nimcada ilaahay dadka ka siiyo aan ku shukrin ta ilaahay kuma shukriyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waan ugu shukrinaa nimcada ilaahay uu naga siiyey ilaahay baan ugu shukrinaa marka hore mar labaadkana nimcatu shukri walaayaga waan ugu shukrinaa beydka wanaagsan noo dhisay warbixintiisina saa loo sheegay baan ku raaxsannahay waanu ilaalinaynaa intii karaankayaga waa ilaashanaynaa wixii awooddeeda u qabanaynaa inkastaan dee tuulo joogo qaryo ay nagu tahay awooddu naga tan badan tahay wasaaratul awqaaf aanay noo imanin reer miyiga yaalaana marna uu sidaa hadeerto ka guuro oo ka maqan yaado cidlo ay tahay marna uu yimaado camiro waqti jiilaal mar ay tahay oo awood baan lahayn waqti raqayan macaan ay tahay oo ay maaragtay caynka meel baadiye ay tahay ku xisaabsan awooddeeda waanu ilaalinaynaa walaalahayaga nooca weeye nimcada noo keenno waxaan ka codsanaynaa inay naga warhayaan oo masaajidka iyo shaqaaleysiga naga warhayaan annaguna saasaan ku ballanqaadaynaa hambalyo iyo nimco iyo duco iyo hambalyo waxaan leenahay hambalyo iyo duco noo soo diraynaa nimcada ay noo keenayna waan ka guddoominay iyagana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay ducada loo ducaynayo uu u guddoomo oo aqbalo baan ilaahay uga baryaynaa hadalku waa iska kooban yahay